أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن kusoo dhawaada Jooqla Media. Furfuritaan kama gaarin maxaa yeelay tanaatii hore ka darnaa dhacday caaba waxaa loo qabsaday naadiga Manchester United oo hilfah loo laabay kadib markii Brighton ay gooldar ka qaadatay, laakiin koodii iyadoo loo mashquulsanaa naadiga Chelsea oo barbardhac ka qaadatay Wolves waxaana soo dhaweyn cajaa'ib leh la kulmay macna shaqkii gatay milkiilaha gatay naadiga Chelsea Blueska, laakiin tanaabatii hore ka darnaa dhacday maadaama Manchester United ay booqatay naadiga Brighton sidaasna ay gooldar weyn ku qaadatay kaliya hal kulana ugu haray waana si official ah ma ka qayb gali doonto UEFA Champions League iyadoo wadato Ronaldo, Bruno, Mata xitaa Cavani la soo geliyay ayay gool ka gaari waayeen, xitaa gool iska daayay goolal macquul ahayn ayaaba loogu badiyay. Marka waa ka kulankaas ayaaba la sugi waayay maadaama kulamada kale ay waqti dhow soo galayaan ku sugis waaye maxaa ka leedahay gooldaradaas weyn ee Manchester soo gaartay iyo barbardhicii lagu qabtay naadiga Chelsea ka hor kulamada finaalka ee la wada dheeli doono horyaalada maadaama hal kulan uu haray Manchester naadiga Chelsea laba kulan camal ay u hartay. sidoo kale kulamada hadda bilaaban doono ka mid yihiin Barcelona iyo Real Betis, halka ay sidoo kale wada dheeli doonaan naadiyaasha kale ah horyaalka Premier League ku tartamayo Tottenham Hotspur iyo Liverpool oo Liverpool garoonkeeda lagu dheeli doono Anfield Stadium. maxaa ka leedahay ciyaartaas sidoo kale waxaan hambali leeyahay naadiga taageerayaasha Arsenal iyo Chelsea maadaama Manchester in soo dhaweyn xitaa in top 4 ay ku cariiriso, laakiin wax walba waa kubadda cagta. laakiin Manchester caawa marada waa laga riday, sharafteeda banaanka ma taalo, waxa waaye luuq la geliyay luuq. Manchester ay video ka horeeyeen waa ku sheegay in caawa haddii ay la garaaco xitaa UEFA Conference League shakal laga geli doono iyadoo naadi fac weyn ay tahay. tii ayaana muuqato kadib markii caawa hilfaha loo laabay. war ilmaha ilmihii oo Arsenal soo garaac waaye ilma maahan Brighton and Hove Albion kaalinta sagaalaad weli loo jiraa saasay tahay. United oo top 4 meelahaas u dagaalamayso Kambi ala dirqi ya Kambi walo hal euro loo maray, laakiin Kambi dambe waa la qabtay la farmajoojiya tii ka dhacday wax inta loo sheekay karmaan wararkeena dambe aad iyo aad ugu falanqeyn doona tan ku sugis waaye ciyaartaas markay dhamaato insha Allah haddii video ka gaarno waa soo dhigi doona insha Allah. sidoo kale kulamada hadda dhow soo gali doonana waxa waaye waa iska sugeynaa ku sugis waaye. maxaa ka leedahay kulankan Manchester lagu daay la ciqaabay inkoo Ronaldo wataan xitaa gadaal dambe waxaa la soo geliyay Bruni Harry Maguire la caynay warkaalni ada wax dhaam laba 4 gool xiluu leeyahay kabtan soo kaca Allah kabtan soo kaca Manchester ma yaab arkan caawa Manchester halka ba inta halka ba 4 gool mar la sii marsiina 70 daqiiqo la soo kiciyay Harry Maguire harigii oo la caynay loo baahda caawa ma jirto. Manchester ilaa u maqan bye bye UEFA Champions League waa ku deesay wallahi billah. Manchester maradeeda waa dhacday geed ma saarno waxa waaye magaalka la kala galo bir subaxni Manchester taageer wadada lagu arkin jaamacadiin waa la furay
goobihii waxbarashada iyo lagu kulmay laga kala dhuunto. Manchester UEFA waa isdaayeen UEFA Champions League, Europa League qalqalay ugu jiraan, UEFA Conference League isku diyaariyaan. wixii ka dambeeya waxa waaye sanadka dambe iyo dadaal cusub UEFA Champions ka qayb galayna leeha u ahaato. waa deysay Manchester rasmi official oo lagu dhawaaqay. fadlan subscribe saar, like dheh si u gaar asxaab badan ku sugis la waaye. aadaadaniga mahadcelina daawashada muuqaalkan. haddii ilaa dhamaadka aan la joogtay, like dheh, like saar, subscribe saar si u gaar asxaab badan. sheertuna waa caawi. aad u mahadsantahay.